madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo oo shalay galinkii dambe safar aan hore loo shaacin ku yimid magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu maanta salaadii jimce kula tukaday masjidka Khalid bin Waliid qaybo kamid ah bulshada reer Berbera waxaana salaadii jimce masjidka soo buuxdhaafiyay dadweyne aad u tiro badan Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo isagoo ay suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil ayaa khudbadii salaada jimcaha masjidkaasi ka soo jeediyay isagoo ka waramay salaada roob doonta oo ay si wada jireen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu oo cilaamisay in bari laga wada tukado guud ahaan gobolada iyo deegaanada Soomaaliland أن الذنوب والمعاصي إذا انتشرت في أمة سبب الشقاء والهلاك والقحط والجد ولهذا أمر الله الناس عبر الأديان بواسطة أنبيائه أن يطلعوا عن المعاصي وأن يطلبوا الغفران من الله على ما اقترفوا حتى ينالوا رحمته ويجتنبوا غضبه فهذا نبي الله هود عليه السلام waxaana dadweynaha kala duwan ay ku dhaqan magaalada Berbera ay ku farxeen isla markaana ay si aad u soo dhaweeyeen safarkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisu ay ku yimaadeen magaalada Berbera iyagoo ay wehelinayeen ilaalo aad u tiro yar isla markaana ay iskaga kala gooshaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo magaalada Berbera taasina waxay tusaale dhab ah u tahay nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaanada Soomaaliland Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.